kudhawaad 500 dhalinyaro Soomaaliyeed oo u tartamayay imtixaanka 40 jago oo ka banaan maxkamadda sare dalka taasi oo ay soo bandhigtay maxkamadda sare kuwaasi oo ku saabsanaa garsoorayaal iyo kaaliyanimo oo socday 2 maalin ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. dhalinyartan oo u fadhiistay imtixaanka ayaa waxa ay qayb ka yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo baxay jaamacadaha dalka isla markaana ay ku haysato shaqo la'aan magaalada Muqdisho. waxaana wajidooda ka muuqatay rajo wanaagsan oo ah in ay ku soo baxaan imtixaanka ayna helaan jagooyinka banaan. gudoomiyaha maxkamadda sare dalka Baashi Yuusuf Ahmed ayaa ka warbixiyay ujeedada imtixaanka iyo jagooyinka banaan wuxuuna u rajeeyay dhalinyarada imtixaanka galaya guul. waxaynu maanta halkan u wada joognaa wajigii labaad ee imtixaanadii ay waday maxkamadda sare ee qaybta ka ahaa dib u habeynta garsoorka sida la sheegay shalay waxa halkan u fadhiistay imtixaan 215 qof oo u tartamayay 40 jago oo garsooranimo. maantana waxa halkan u fadhiya 290 qof oo u tartamaya 50 jago oo kaaliyanimo oo loo qaadanayo qaybaha kala duwan ee garsoorka maxkamadaha degmooyinka ilaa iyo maxkamadaha sare. saynu hore u sheegnay imtixaanadani waxay qayb ka yihiin kow dib u habeynta garsoorka lagu sameeyo labana waxay hormood yihiin in ummadda Soomaaliyeed ay fursadaha dalka ka jira u sinaadaan fursadaha shaqo soo baxa u sinaadaan loo tartamo imtixaankaasna uu noqdo insha Allah taala mid cadaalad ah sidii markii horeba idinka oo aad si furan aad emailada ugu soo dirsateen codsiyadiina imtixaankuna uu noqdo insha Allah taala mid furan oo cadaalad ah oo guddiga saxaysa cadaaladda si cadaalad u saxdo guddiga imtixaanka saxaysa insha Allah magacyadiina ma yaqaanaan oo waraqaha imtixaanka la idin siinayo marka imtixaanku dhamaado magaca warqada magacu ku qoran waa laga jarayaa guddiyadu kaliya waxay ku saxayaan number taa macnaheedu waxa weeye guddiyada saxaya ma yaqaanaan dadka ay saxayaan magacyadooda iyo waxa ay yihiin. taas waxay muujinaysaa oo idin tusaysaa sida looga fikiray ee loogu dadaalay in imtixaankaasi aan sina aan u soo galin wax shakiya ama warwar ah oo laga qabi karo oo aan iman tuhun ah hebel wuxuu garanayay hebel ama hebel wuxuu maaragtay u yahay hebel. marka dadku waxay guddidu waxay saxaysaa nambaro taas macnaheedu waxa weeye waxa soo baxaya kaliya ta cidba mudan in ay soo baxdo imtixaanka ugu sareysa hadii Ilaahay yiraahdo. marka cadaaladaas baad insha Allah taala ku talagalaysaan waxaanu idin rajaynaynaa guul waxaanu rajaynaynaa inay soo baxaan dadka ugu habboon ee bulshada ugu adeegi kara sida ugu wanaagsan ee cadaaladu ku jirto. waxa arintan ay qayb ka tahay dadaalada ay wado dawladda Soomaaliya ee lagu hagaajinayo hanaanka garsoorka Soomaaliyeed. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.